إلهو جنين كابريني إيا إنا نذكر سنارة جهنم ولا ليال لما سفين كرا هدي لسفينا نارتا تلمانتا لغا قادا وحينو هل كان كسو قادان دونا تلماما كميدا نارتا جهنم سامو ودا كوبي كرنائه ونار سلبالارن كل بضن بلئي باس ودن له عذاب درن او ان لو دل قادان كرين جرك ديريسا وحو يري صوبانه حديث كان صحيح مسلم بوكيال مالنت قيامها نارت جهنم با لكينا يا ايضو له تضباطا كن او حرق والبنة وحا هيا او جيدا يا تضباطا كن او ملك بل سوريستها ضبا هدي ايان حيين ملائكتا نارتا قفنك كما تكتين أرلد كركيسة جهنم إخواني واهم راكتا أو ويرينتا مركاسنا مجرو ملك مقربة أما النبي لصوقري أنجل بجرسا يضو مدولي بليه هي نفتيدا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ما يمرك لك لغا دغدو دغدا oo rabbiga yimaado malaa'iktuna timaado iyadoo safsafa naartana la keena meel dhow maalintaas buu aadanuhu waan sami doonaa maxayse waan toobida markaa u tari doontaa qof waliba wuxuu xusuusan doonaa wixii uu soo hormarsaday iyo wixii uu uga soo tegay dib wuu ooyi doonaa oo ilmadu ka daadan doontaa laakiinse waxba ma tari doonto boohin wuu shallaayi doonaa goor aysan shallayti wax tareen wuxuu odhan doonaa hoogayay haddii aan usoo hormarsan lahaa camalo suuban noloshayda tan kolka maalintaas cidna uma cadaabi doonto siduu isagu allah wax u cadaabi doono oo cidi wax uma xirxiri doonto sida uu isagu allah wax u xirxiri doono waxaa la sheegay in ibnu mascuud allaha ka raali noqdee yidhi marka ay naarta isugu soo haraan kuwa abadkood ku waari doona oo laga soo saaro qofkii qalbigiisa ay ku jirtay wax saxar ama quraanyo la eg oo iimaan ah waxaa la gelin doonaa ahlu naarka sanaadiiq naar ah oo leh masaamiir naar ah sanaadiiqdaa waxaa la sii gelin doonaa sanaadiiq kale oo naar ah misna sanaadiiq kale oo naar ah markaasaa waxaa lagu tuuri doonaa jaxiima markaasay isla yihiin waa idinka oo keliya waxaa naarta ku jira مركاسو أخري قولك الله عز وجل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون دحديدا نارتا عركن يهن راجبي أهان دونتا قيب توضو دحديدا وحنكم المقلان أسد بن موسى وحسوري إن رسولك الله صلى الله عليه وسلم يريد جهنم وحا كل يالتد أي جهنم كعود بالليسة الشركي سمالين كستبتد بجير تقانا وحا كل يالبهل تبقوا كعود بالاستمال والبا بهشنا وحا كجر مصر أي كود عود بالاستان جهنم يتبقى يبهش بمان والبا مس كان وحو إلهي أدي يا شيء قراد قرآن يقان هيا شيئا كعمل فلين يعلى ابن المنبه وحو يري نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري إلهي وحو أعرن دونا أهل النار كضرور مدو مركاسا وحا لأرن دونا أهل النار كو محاد دونيسان ومحي دلب كينو waxay soo xasuusan doonaan daruurihii roobka ee adduunka markaasay waxay oran doonaan rabbi ow cabitaan baan rabnaa markaasay waxay soo dayn doontaa jeebado iyo silsilada naar ah oo kuwoodii ugu sii darsama iyo dhimbiladaba waxaa wariyey adabaraani iyo ibnu xaakim sidaan idin sheegay walaalayaal cadaabta naarta lama sifayn karo waana wax lagu xeeraamo oo caqliga qaada ما isweydiiseen waa maxay cuntada ahlu naarka allaynu ka magan galnaya waa sida uu sheegay alla weyna jalla wa ala thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun la'akiluna min shajarin zaqqum
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم idinka lunsanayaasha ah been iyo xaqa oo diida inaad ku dhaqantaan waxaa hubaal wax ka cuni doontaan geedaha zaquum waxaad ka buuxin doontaan caloolihiina geedka oo ku cabbi doontaan biyo kulul oo beel karaya ah marka waxaad u cabbi doontaan waxaa sida geel asqoobay waa maxay geedka zaquum أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين majannada baa martiqaad iyo maamuus wanaagsan mise geedka zaquumka geed xun oo ku yaal naarta waxaan u yeelnay geedka oo u diyaarinay daalimiinta waa geed ka baxa naarta dabka ah salkeeda fiidaha khaylalka miraheeda waa sida madaxyada shaydaamada waxay wax ka cuni doonaan geedka oo ka buuxin doonaan uurarkooda dabadeed waxaa taa u dheer oo la siin doonaa biyo kulul dabadeed intaa kadib noqodkoodu waa holaca dabka ah aan danayn ee naarta wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam haddii dhibic geedka zaquumka ah ay ku dhici lahayd adduunka waxay halleyn lahayd nolosha arlada oo dhan ee ka waran kay u noqon doonto cuntadiisa weligii waxaa wariyey ibni maajah waxaa ka mida cuntadooda sida uu noo sheegay alla weyne jalla wacala إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما waxaa xagga iyaga jira jeebaba aan ku xirxirno dambiilayaasha iyo naar carsamaysa iyo cunto lagu margado iyo cadaab xanuun badan sidoo kale wuxuu yidhi alla weyne هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع wax cunno ah kuma leh halkaa aan ahayn geed sunah oo qodxo badan oo aan waxna saqahayn ahayn waxna ka tarayn gaajo wuxuu kaloo yidhi فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون sidaa awgeed wax saaxiiba kuma laha halkan oo kuma laha wax cunno ah melal iyo malax ma ahee waa dhacaanka ka yimaada nabarada ahlunaarka iyo dhididkooda cidinama cuni doonto aan ka ahayn dambiilayaasha waxay cunayaan ka hor inta ayan naarta cunin dhacaankooda waxa ay cunaan oo geliyaan caloolahooda wax kale ma ahee waa dab naar ah أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. marka cuntadoodu waa dab kulul oo naara. walaalayaal ma isweydiiseen sharaabka ahlu naarka شرابك أهل نار كي يعبتان كودا وابيا كل لوبيلا. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وحيكو عبد دونان بيا كل أو ضب النارتا وحالفين دونا في أي عبان بيا كرية أو جوجوس سيد مهورة بيها أو مركب أو يود ويان وديادو لهلب كوجه قديرانيسا هدي أي دلبضان gargaar ka soo gaarid biyo iyo wax la mid ah waxa loogu gargaari doonaa biyo sida saliid karaysa oo kala ah oo gubi doonta wajiyadooda sharaab lagu bacay iyo deegaan baas wuxuu yiri alla weyne sidoo kale la yaduquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وحقبوا كما ددمين دونان دحذا إيا وحعبتان تونا بيأكلون أو كريا يعرون معها وملحظة إيا وحلمده وحوكالو يري من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. waxaa laga yeeli doonaa inuu cabo biyo karaya oo milil waxaa la yidhaahdaa dhiigga intiisa cad madaxda waa uu liqliqi doonaa isagoo aan doonayn wuxuuna kala kulmi doonaa dhib weyn inuu mariyo dhuuntiisa dhimashaduna waxay uga iman doontaa dhinac kasta sidaa ay tahay ma dhimin doono hortiina waxaa ahaan doona cadaab qallafsan. ma isweydiiseen dharka ahlu naarka xagga labiska ahlu naarkana waa dab loo geeyo dab walaalayaal waa cambuuro iyo saraawiil laakiin daba siduu yiri alla weyne jalla wacala فالذين كفروا قطعت لهم ثياب نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. kuwa xaqa diida waxaa loo goyn doonaa dhar naara. wuxuu kaloo yiri وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. barkoodu wuxuu ahaan doonaa daamur yacni laami dad aan dhamayna wuxuu dabooli doonaa wejiyadooda. wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qofka u horeeya oo loo xiri doono isku joog naara waa ibliis calayhi lacnatullah. xijaabyadaana loogu goyn doonaa dabadiisana ka raaricinaya isagoo jiidaya iyadoo firkiisa daba joogaan isagoo leh hubuura hoogay oo ba'ay balooy iyaguna waxay ugu yeerayaan hubuurahum baladoodii waa ba'oodii ilaa naarta lasoo dul joojiyo markaasuu wuxuu odhanayaa hubuura balooy iyaguna waxay odhan doonaan hubuurahum waa ba'oodii markaasna waxaa lagu odhan doonaa laa tadcu lyawma hubuuran waaxidan wadcuu hubuuran kasiiraa. ha u dhawaaqanina maanta balaayo keliya ee u dhawaaqda balaayooyin badan. waxaa wariyey
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة